بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi kooban oo la yeelanayna Cabdulle Cumar Cabdulle oo kamid ah jalayaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhowr filan oo kala duwan ay jeclaysan shacabka Soomaaliyeed ayuu ka soo muuqday wareysigeena waxa uu ku qatamaa filankii ugu dambeeyay ee naftii hore oo ka ahaa jilaaga koobaad waxa idin la socodsiin doona wareysigan oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed anigoo ah Mustafa Xasan Cabdi inta uu socdana waxa dhanka iyo kaamirooyinka naga saacidi doona Cabdi Xasiis Meegaag Cabdulle marka hore ku soo dhawaatay TV qaranka Soomaaliyeed waa ku maasan tahay ina waqtigaaga noo soo horto si aad ugu qayb noqoto wareysigan waa ku maasan tahay Mustafa aan ku dhawahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed Cabdulle waa maasan tahay filmaan kala duwan ayaad hore u soo jisay sida aan hadda ka dhawaajinay balse mowduuceena toddobaadkan waxa uu yahay in aan ka hadalno filanka naftii hore oo dabcan lagu jilay magaalada Muqdisho ugu horeyn waxaad nooga sheekaysaa filanka naftii hore muxuu yahay naftii hore sida magaca kaaga muuqato waxa waaye filan xasaasi ah filimka naftii hore wuxuu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynay dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay la soo daristo duruufo xagga nolosha ah gaar ahaan dhalinyarada kalluumaysatada inta badan waxaa jira dhalinyaro kalluumaysiga ma ogi aan xirfad kala lahayn markii xirfadii kalluumaysatanimada uu ka soo xirmato oo caqabad kala kulmo uu magaaladiina meel uu ka wajahaa ama maaragtay nolol sidii u raadiyo ama shaqo kale u raadiyo aysan lahayn nolol xaas iyo ilmo iyo ku xiriirto sida dadka caadiga ah nolol laga rabo caqabada ku soo aadi karto qofkaas pressure ka fuulaayo iyo go'aamada qaldan uu qaadan karo inay dhibaato keeni karto dhibaato ay leedahay aan ka wacyigelin waa gartay filankan sidee uu ku yimid filankan wuxuu ku imaaday waxaa jirtay filmaan badan oo waxaa la jirtay Soomaalida laga sameeyay burcadbadeed ayadoo burcadbadeed yani la sawir xumeynaayo oo inta badan waa fiirsatay filmaanta beelaha caalamka ama dadka ajaanibta ay sameeyaan macnaha waxay aad loogu sawir xumeeyaa burcadbadeeda iyo dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad qaab daran in wax saas oo kale kadalik marka anaga filmkan waxaan ku sameeynay qofkan horta inta uusan burcadbadeed noqonin ama uusan fikirkaas isticmaalin ka hor noloshiisa sidee ahayd maxaa sababay inuu noqdo midda saxda la rabana in la ogaado haddii halka in la gaaro la rabo taas waaye qofkan maxaa keenay inuu fikirkan qaato ama go'aankan qaato ka horteedsi qof wanaagsan muu ahay qof xun muu ahay in aan bulshada u tusno caalamkana aan tusno in qofkan fikirkan uu qaadanayo laftirkeeda in ayaga laftirkeeda saameyn ay ku yeelan karaan inuu qofkan fikirkan xun qaato oo burcadbadeed noqdo in ayaga saameyn ay ku yeelan karaan ayaga laftirkooda ujeedka ugu muhiimsan anaga intaas oo ahay ma ahayn in maaragtay aan hadda burcadbadeed iyo waxyaabahaas aan ka hadalno laakiin sawirkii xumaa ee hore noo laga gudbiyey inaan maaragtay dib u saxno oo aan dadkii iyo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kaleeta caalamkaba inaan tusno burcadbadeedka noloshiisa hore inay jirto dad nolol wanaagsan ku jiray nolol fiican ku jiray oo aanan tuug ahayn oo aan daroogiste ahayn balse duruuf keeni karto inuu meeshaan aado duruuftaasna laftirkeeda ay maaragtay bay'ada sabab u noqon karto isla caalamka qaybiisa kala duwan dad kamida oo dhaha maaragtay xeebaha ilaalinaynaayoo kaleeto ama kalluumaysatada xadka soo gudbo oo kale caalamka inay laftirkooda sabab u yihiin in burcadbadeed uu abuurmo sababteeda inay leeyihiin aan filimka xoogiisa ujeedkiisa aan kaga hadlayo waa gartay waa maasanta Cabdulle dadka filimka ay jilaya iyo dabcan goobta lagu jilay sidee lagu soo xulay waa dareemi kartaa markuu filimka jacayl uu sameeyo drama ahayn maxaa la yiraahdaa filim caadi ah oo loo baahan yahay characters muhiim ah way adag tahay in la kala xulo directorka iyo anigu filimka producerka ahay waxa waaye waqtiga nagu qaadatay in aan dadka soo xulno dadka aan sidii karno way ka soo bixi karaan ama muuqaal ahaan iyo qaabkii loo sameyn lahay wixii oo dhan waqti badan nagu qaadatay waana caqabad badan kala kulana waana waa gartay baraha bulshada ay dabcan Soomaalidu ku kulanto waxa ay dabcan la hadalhayay in filimkan lagu dhiirigelinayo burcadbadeeda isla markaana ay dabcan dhaqaale ay ku bixiyeen iyada arrinka maxaa ka jira wax walba oo sameeyay waxa jira dad fikir khaldan ka gudbiyo waa arkay dhaliicooyin badan oo la leeyahay filimkan waa sidaas laakiin xaqiiqda waxay tahay qofka haddii uu filimka daawado
filimka kolley subtitle uu leeyahay si heer caalami u sameynay wuxuuna ka soo muuqday shaashadaha caalamka wuxuu ka soo baxay 3 award selection ka soo noqday ma fahanto Soomaha oo heer caalami ah qofka fiirsada filimka naftii hore oo soo arka asaga go'aan ka gaari karo laakiin waxaan u arkaa inuu marin habaabin ah in maxaa la yiraahdaa anaga burcadbeed ma dhiirigelinayno waaba burcadbeeda laftirkeeda aan ka wacyi gelinayna sababtoo ah marka aan dhaho Fahad oo kale ku metelay characterka marka uu daruuftii ay qabato uu baxo uu badi galo uu soo dhimanaya marka waa macnaheedu waxay tahay ka taxadar ha ku dhimanin waaye dhibaatada macna naftaada halis ay gelinin waaye laftirkeeda marka wacyi gelinaba naga heed anaga marka dadaas si qaldan u fasiray marka waxaan leeyahay walaalayaal Soomaalideena in waxyaabaha wacyi gelinta aan si qaldan loo adeegsan si qaldan loo fasirin hadda waxa sheegtay filimka intii uu socday inaad ku dhimanayso hadda waa la fadhisaa maxay ka dhigan tahay waa waxyaabaha ugu qosol badnaay markuu filimka soo baxay toddobaadka aad loo hadalhayay maalmihii ku xiga Facebook post soo dhigay comment ugu badnaa dadka waxay lahaayeen war waa dhimatay intee ka soo baxday haddana oo dhintaan ku ogeene marka ay dhacdaa actor filmaanta Soomaalideena waxa waa hadda waxaan ugu cusub inaan filmaan heer caalami sameeyno oo caalamka la jaan qaadi karo oo horumarsan inaan sameeyno ugu cusub tahay actorka waa dhintaa waxa dhacdo in actorada la kufsanaya dhacdo marka hadhow inaan la dhihin waxa ugu badan actoradana caqabad ku noqdo noloshooda waay waxa dhacdo Maxamed Jaamac oo kale character wuxuu matalayaa Mooriyaanimo qofka ka hor yimaado wuxuu isleeyahay war ninkan Mooriyaan waay ma aha qofka characterka filmkaas uu matalayaa anigana waa dhintay laakiin run ma dhimanin markii teeda dhamaata dhiman doona laakiin ma santahay Cabdulle yaa idigu dhiirigelinayay filimkan qabashadiisa wallahi anaga isku dhiirigelinaynay waxaan dareenay in saaxadda filimada Soomaalida in badan gaab badan uu ku jiro oo ilaa in muddo ahna uusan wax horumar ah sameeynin marka laga reebo dhowrka filim oo qisooyinka Soomaalida laga sameeyay ee ajaanibta sameeyso laakiin marka la yiraahdo Soomaalida dhexdeeda production Soomaalida dhexdeeda inuu gaab badan ku jiro maalmo waa la sameeyaa filmaan laakiin tayada marka la yiraahdo oo lala jaan qaadi karo filmaanta kaleeto ee wadamada dariska ah iyo kuwa kaleeto heer caalami ah tayadooda in lala jaan qaado waa adag tahay waxay u baahan tahay kharash badan iyo waqti badan marka waxaan ugu dhiirigelisay inaan wax badan ka bedelno wixii hore wax walba la sameeyay waxay leeyihiin caqabado oo dabcan lala kulmay inta lagu guda jiro sameynta arrinka caqabadihii ugu weynaa ee la kulanteen inta aad ku guda jirteen sameynta filimkan iyo jilinkiisa maxay ahayd caqabadaha ugu weyn anaga bisna ma haysto qof walba oo Soomaali film jilaayo haysta caqabadaha ugu weyn waxay tahay horta inta badan maamulka gobolka iyo hay'adaha dawladda ku shaqale waa ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeedna waa ka codsanaynaa filmaanta marka la sameynayo kaleeto dadka adduunka filmaanta waxay leeyihiin film dhama waxa arkaysaa wada loo xiray ama meel loo gooyay oo ciidan gaar ah oo hadda anaga waxaan u maleynayaa Soomaaliland minishibi iyo booliska ku shaqale in la caawiyo kambanigaas canshuur uu bixiyo canshuur laga qaado asagana laga caawiyo markii filimada la sameynayo meelaha uu baahan karo tusaale ahaan anaga hadda maanta waxaan sameeyay filmaan badan oo wacyi gelin oo ku saabsan amniga waxyaabahaas oo ku saabsan tahay laakiin waxa caqabad ugu horeysa nagu ah waa inaan helnaa gaadiidkii booliska waa inaan helnaa dareeskii booliska ilaan waxa wacyi gelin sameynayna anaga waa sidii in sida sax loo sameeyo taas maadaama aadan heli karin ama caqabad ay tahay ama dadkii ku shaqo lahaa ay ka gaabinaan ama isku xir badan uusan jirin waxa dhacaysa in wacyi gelintaas ay dib u dhacdo ay baaqato marka waxaan ka codsanahay dadka ku shaqada leh inay dadka filmaanta sameynaya productionada ka caawiyaan in wax walba oo tasjiilaad ay helaan example adertan filimka naftii hore markaan sameynay waa aragto huba isticmaalayna way adag tahay hub in la isticmaalo adoona darees wadanin sharciyadna u haysanin inaad hub isticmaasho oo wax ku duubto markii xaaladda dalka loo fiiriyo waa adag tahay marka waxaan ku qasbannahay inaan wargelino hay'adihii amniga meesha aan ku sameynayno ugu dhawaay inaan dhaano war xaalkaas jira saasa jiro hana laga warhaayo oo dhibaato ma jirto film la sameynaya waxaa dhici karta in hubka la isticmaalayo laftirkooda rasaasta in laga ilaaliyo dhibaato iman karto marka waxyaabo badan oo caqabado badan la kulmeynaa marka waana iska hagaagayaan shirkadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeedna waxaan ku dhiirigelinayaa filmaanta meelaha kaliya wax lagu xayeysiisto oo ma aragtay sponsor lagu sameeyo bulshadana wax loogu qabto waaye inay u soo jeestaan dhanka filmaanta film ma wax xun filmaan badan oo wacyi gelina jiro inay dhankaas u soo jeestaan ayaga laftirkooda
oo ay kaalin ka geystaan oo filimaanta ay fangareeyaan. Filimaan 1 milyan ku baxaa la fangareeyaa, marka inay filimaanta fangareeyaan oo wacyigelinta ah oo waxa wanaagsan ka hadlaayo. waa maasantahay cabdulle waxaad ahayd fanaan dabcan inta badan Soomaalidu ay garanayso sidoo kale waxaad ahayd boxerka Soomaalidu taqaan karate haddana waxaad tahay dabcan jilaa aad ugu soo muuqday filimaan ay dabcan Soomaalida inteeda badan ay jeclaysatay mustaqbal ahaan keebaad leedahay ugo oo dabcan sii wato horta fanaan iyo jilaa waa isku hal qaanad sportiska oo tusaalahan dhanka karateega oo kaleeto asagana waa arrimo bulsho waxyaabaha oo waxa waaye soo imaanayaan. Marka mid walba alxamdulillah guul ka gaaray. Marka waxaan rajaynayaa in maaragtay aan horumar badan ka sameeyo wax badanna ay maaragtay ka bedelnaadaan wixii hore. nin dhalinyarana waa tahay dhawaan markii doorashooyinku waxay socdeen xildhibaan aad u soo sharaxay baraha bulshada wareegayay marka xildhibaan nin soo sharaxay oo dhalinyaro jilaa ahaa fanaan ahaa Soomaalidu isweydiinayaan marka maxaa ka leedahay waa wax kaliya loo baahan yahay sababtoo ah hadda waxaan rabnaa inaan sameeyno maxaa la yiraahdaa olole ah waxaa jirtay 30% qoondada dumarka hadda waxaan rabnaa 100% inaan qabsano dhahno qoondada oo bahda fanka oo wax baratay oo wax bartay oo maskaxdooda fresh ka tahay dawladda inay maaragtay hadda kadib maxaa la yiraahdaa qoonda ka siiso waa gartay cabdulle ugu dambeyntii maxaa jeclaan lahayd inaad ku soo kordhiso filmaanta gaagaaban dabcan Soomaalida Mustafa aad u maasan tahay waxa aan rabno horta waxay tahay markii anaga burburan ka soo kabanay 30 sano ah waxaa jiro khayraad dalkan khayraad uu leeyahay khayraadka uu leeyahay waxaa ka mid ah sheekooyinka filimada oo kaleeto khayraadka uu dalka leeyahay ka mid tahay maanta meel walba magaalada amarta dhacda taalo ha noqoto mid xanuun badan mid farxadeed mid horumarineed mid wacyigelineed waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan ka wacyigelino wax walba oo bulshada diiniin iyo dhaqan ahaan aan u fiicneen sida kaliya lagu wacyigeli karana waa filimaanta si tayo leh inaan filimaan tayo leh oo bulshada loogu wacyigeliyo maxaa la yiraahdaa sheekooyinka dalka iyo dhaqankeena aan ku horumarino oo adduunka aan ka gadno waxa aan rabno waa intaas waxaan rajaynayaa inay ummadda Soomaaliyeed nagu garab qaban doonto oo aan heer sare gaarsiin doono insha Allah waa maasantahay cabdulle waa hagaag daawadayaal inta ayaa ku saafmeerayna waraysigeena koobnaa oo aan la yeelanay cabdulle Cumar Cabdulle waxa uu nooga qabsamay xarunta Hidasoor oo kamid ah goobaha dhalinyarada Soomaaliyeed isku timaado aadka loo casriyeeyay isla markaana ay lagu xardhay agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed inta aynu mar kale dib u kulmi doono waraysiga xiga sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.